codeeyaan isbeddelka sababtoo ah waa sida keliya ee Somaliland kaga badbaadi karto burbur iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee beelaha dega bariga gobolka Togdheer galbeedka Sanaag bariga Saaxil iyo galbeedka Sool oo kulan wareed ku qabtay magaalada Burco iyo fariin la xiriidha doorashada u diray shacabka Somaliland annagoo ah salaadiinta beelaha habar jeclo waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaqan oo ah sidan soo socota waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan shacabka reer Somaliland in ay ilaaliyaan nabadgelyada kuna codeeyaan si ay ku jirto mas'uuliyad iyo xilkasnimo waxaan ugu baaqaynaa isbeddelka sababtoo ah waa sida keliya ee Somaliland kaga badbaadi karto burbur iyo kala fogaansho dhexdeeda ku yimaada sida annaga ay noola muuqato waxaanu faraynaa beelaha habar jeclo meel kastoo ay joogaan in ay u codeeyaan isbeddelka waxaanu cambaaraynaynaa hadalkii madaxweyne Muuse Biixi oo ah murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye uu ka jeediyay magaalada Burco isagoo ugu hanjabay odayaashii iyo acyaantii iyo waxgaradkii dejiyay dalka nabadgelyadana ku soo dabaalay uu ugu hanjabay xadhig iyo maxkamad ugu dambayn waxaanu ummadda reer Somaliland weydiinaynaa madaxweynaha halka xaalkiisu marayo ee isagoo murashaxa oo ummadda ka doonayo cod ku hanjabaya xadhigga iyo maxkamadda miyuu istaahilaa ama se mudan yahay in mar kale dib loo doorto su'aashaas waxaan uga tegaynaa jawaabteeda bulshada reer Somaliland wabillahi tawfiiq